xaflada aad u qiimo badan oo si heer sareysa loo soo abaabulay ayaa lagu qabtay magaalada Garoskiirow ee gobolka Hiisan dalkani Jarmalka. xafladan oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Jarmalka ayaa ahayd mid qayb ka ah xafladaha iyo dabaaldegyada dadka Soomaalida ee qurbaha ku nool ay ku taageerayaan dawladda cusub ee u dhalatay dalka Soomaaliya ee uu hogaamiyo Professor Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba Dr. Said. waxaana taageeradan xalay si weyn loogu hambalyeynayay gudoomiyaha golaha shacabka Professor Maxamed Sheekh Cismaan Aadan Jawaari, waxaana dadkii halkaasi ka soo qayb galay ay si weyn u taageerayeen dawladda cusub iyadoo noqonaysa markii ugu horeysay 22 sanadood oo Soomaaliya ay yeelato dawlad rasmi ah tan intii ka dambeysay markii ay dhacday dawladdii dhexe ee uu kacaanku hogaaminayay. xafladan xalayta lagu qabtay dalkani Jarmalka ayaa ahayd tii ugu weyneed ee abid dadka Soomaaliyeed ay ku taageeraan dawlad u dhalata dalka Soomaaliya, waxaana goobtaasi ka hadlay siyaasiyiin iyo waliba xildhibaano iyo ururada haweenka iyo dhalinyarada oo iyagu dhammaantoodba sheegay inaan loo baahnayn taageero afka ah ee loo baahan yahay mid dhaqaale. isla markaana dadkii goobta ka hadlay waxa ay soo dhaweeyeen xilka cusub iyo waliba mas'uuliyiinta cusub ee u dalka Soomaaliya. رئيس الوزراء قدوميها البرلمان كل شيء ينقويتن انتي سنتاغيرتان لكن ولسي شيء صومالي هدين لأنه وابلين الدولة دلتي أموالنا شيء لين هنو مجال بسين كدياس فورسا دولة تاغيران إراسا لكن هنو تفاني دكاسا تفاني ديسن دكاسا دولة كدافا على دولة شقي maaragtay aan qabiilkii ka orday oo diintoodii u soo laabtay oo dadkoodii u soo laabtay oo xaqi Ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo noqday. anigoo ku hadlaya magaca ummadda Soomaaliyeed ee Germany iyo magaceygaba waxaan hambalyo aad u diiran aan u gudbinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Professor Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. tii ka dambeysay markii lagu dhawaaqay dawladda u dhalatay dalka Soomaaliya ee uu hogaamiyo Professor Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa soo badanayay dabaaldegyada iyo waliba fantasiyaha dadka Soomaaliyeed ay ku dhigayaan dalalka dibadda taasoo ay ku muujinayaan taageerada faraha badan ee uu hayaan dawladda u dhalatay dalka Soomaaliya. waxaana xafladii ugu weyneyd abid ee lagu qabto dalkani Jarmalka ay ka dhacday magaalada Garoskiirow ee gobolka Hiisan taasoo ay ka soo qayb galeen boqolaal dadweynaha Soomaaliyeed oo muujinayay taageerada uu hayaan dawladda u dhalatay dalka Soomaaliya. waxaana habeenkii xalay ahaa si weyn loogu dabaaldegayay xafladaasi iyadoo lagu taageerayay gudoomiyaha golaha shacabka Professor Cismaan Sheekh Maxamuud Aadan Jawaari, madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon. waxaana xafladu ay ahayd xaflad si heer sare u socotay iyadoo ay ka tumayeen fanaaniin dadka afka Soomaaliga ku hadlaya aad u yaqaaniin oo ka mid ahaa fanaan raaxeeye iyo waliba Ahmed Sikaawe. Mustafa Xaaji Aadan Haarun, telefishinka caalamiga oo Cable TV Jarmalka.